madaxweynaha Soomaaliland Daahir Yaale Kaahin ayaa maanta shir jiraayad oo ku qabtay xarunta madaxtooyada kaga waramay qodobo dhowr ah kuwaas oo ay kamid ahaayeen khilaafkii golaha guurtida dilalkii kala dambeeyay ee ka dhacay magaalada Laascaanood iyo hogaamiyaasha mucaaradka ah oo uu ku eedeeyay inay kala qubayaan Soomaaliland madaxweynaha ayaa ugu horeyn ka hadlay arrinta guurtida iyo arrimaha doorashooyinka waxaan waa la yaabanahay doorasho waxay ku dhamaatay marka serverka la saxo maalinta doorashada ay qabtaan commission heshiiskii ka soo ah ninkii war damba ka keenaa waa ujeedo kale leh xukuumaddu waxay sugaysaa maalinta commissionku doorashada qabto maalinta sigil sheeka ka nool taasi ma jirto ku dhamaatay ninka soo celcelinaya ujeedo kale wixii xunba xawaale sheeka la yiraahdo baa jirta xukuumadda ka dambaysa haday laba digaagii suuqa isku qabsadaan والحكومة وحلا واحد كده بيسمي جرت الحكومة وحي ربطها ضل كان إنه نبض هذا institution كاستنا إنه حل كيسة سد ستوري وجود تبي حكومة دو تاجنت جورتيجا فرجلين لكم هايلو بعد قانون جديد إنه حوي شو جدون كورتا إنه يكوسكو يمدان أي شيء يقولوا هو أي شيء أنت هالسكرية لو بهية وحكروا لو بهية سوقين بين لقى سبيو ورد أنا جرين إن لا ترميو midna ma laba baahan waxaasina wax dhaqana maahin geesta kale madaxweynuhu waxa uu ka hadlay dilalkii kala dambeeyay ee ka dhacay magaalada Laascaanood madaxweynuhu isagoo dhinaca kalena ku eedeeyay hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka in ay kala qubayaan Soomaaliland waxaan anigu hadda tagay meelaha ka hadlay wadageysiteen baan u maleynayaa muwaadiniinta reer Soomaaliland dibadda joogta mid ahaada ma kula hadlaano midnimo waxaan ilaahay midooba danta qaranka xisbiyamatihi ma ku ilaha markaan dibadda tago saaxiibadayna tuka duwan bay ilaahdaa kala qaybin iyo kala qoqob ayay ka fadiyaan oo dibadda la wareegaan oo nasiib darrada anigu aan la yaabanahay dadka dibadda jooga ee lagaga qaaraan urursanayo Soomaaliland ma jirto Soomaaliland oo jirtay inay wax ku bixiyaan ba jeclaan lahaay Soomaaliland ma jirto inay wax ku bixiyaan أنا تانا وحنا لهي مواطنين تدبد جوتا بل لما كان صاحب بدأ هي ماشي من برنامج هيدي كان الأيبنيان لكن عاييو أفلقاده إيو حكومة العاييو وحاسس سؤال لا نروح يتريان مترو تانا وحنا لهي وحلو قد بينا يا مارك تانا مواطنين تدبد جوجا أنا دبد مركان تجو وحنا لا حسبيو إسكي لابه أنك هجودها جوجنا أنت يدا جودة جوجتك فلا إذا كوا واحد نقطان دنت Soomaaliland ومدوبة Soomaaliland نبدأ مال قرى يسكتاجا والحين قرحية Laascaanood بدي يوم بس سيابك لو واحد نجا رجل سلادينا أحمد سيارة هرمود كأها يا وجه كله سركال قرن وهالك كل انتهي وأرجع حساب عن شيء أي كذا بيسي كوا كذا بينا وكل انتهي حرب هنا يلاقوا كذا بينا وأرجع حساب الله يعني ودمان هو هرية كود دمبا وليها أضياشة يكون اسكت مرينا وفكرة خلط دمبا الله هي حكومة دعية عليه دنبية دعية باريس تيزا سوي دبقش عد كلو وودو له مجرته وحكلو جرا وليها جزائر بريال دويد لها اليوم البيتها والله لها مدحوين يبيو ورت الجزيرة اللي يبيو دولنا اللي يبيو لكن واحد شاقيا maalgelin hadii lagu sameeyo bad iyo bari iyo meel kasta xukuumadda ka mas'uula suldaanka ka mas'uula odayna ka mas'uula muwaadin kasta oo reer Soomaaliland way u sameeyeen ka ceelaya ku dhashay iyo kaloo yacda ku dhashay haduu maalgashi ku sameeyo Jazaa'irka cidii la timaada ee shuruudaha maalgashiga buuxisana waa la siinayaa cid la weydiinayay ma jirto shuruudaha maalgashiga inuu buuxiyo un baa qofka la weydiinaya wax kale oo la weydiinayay بجرت حكومة ده حلو سبعي سنين وحوي مسؤولية دولة كلية وأنا احترامي يا سلطان كستو ودن كأ بري يقل بيت به لكن وحلا هي سلطان دون يكونه هكذا دور سنة وحي أنا نيكها أن كفك وجه هي إن إسكال على يامبان الكاغو سوتشي دنيا وحلا هي محجر وكاسو من لوفر من عرقلات كسبعي سول لقى قبل يوم بينا بجرت محجر كاسو هانا يا محجر كرول سبعين أيام بجرت waayo wixii ninka yiraahdo imika maxjar kala sameeyay dagaal badan baa la inagu la jiraa
qaar baa raba baxtirkeenu inuu xidho fiila gaara baan ku haynaynaa taasna hadduu ilaahay idhaa waxaan leeyahay ganacsatada caalamka qiimo kama kordhinee dadka u naxariista oo qiimaha ka jebiyaan leh qiimaha laga jebiyo shacbiga waayo sicir ka kordhay dibadda ma jiro mar buu kordhay hoos buu noqday qiimaha waa in laga kordhiyaa wasaaradaha ku shaqalana waa inay la socdaan sicirka sababaha uu kordhay oo dabagalkooda ku sameeyaan